waa tahay daawadayaal markana aynu eegno arrin ka duwan arrimahaasi oo dhan oo ku saabsan xagga fanka. muddo haatan laga jooga hal bil waxaa soo baxday hees halku dhageedu yahay barbar. ha yeeshee heestaasi markii ay soo baxday ayaa baraha bulshada waxay kala kulantay falcelin aad u ballaaran oo ay ka sameeyeen dad badan oo isticmaala baraha bulshada. dadkaasi oo ay fanaanin ka mid yihiin ayaa waxay ku dhageen qayb yar oo ka mid ah heesta oo fanaankaasi uu israacinayo ereyada iyo ficilka heestaasi. anoo ku jiifa qurqur jacayl ku xiray sarsar intuu igaliyay dardahar ayuu ii tuuray barbar. tobannaankii sano ee lasoo dhaafay ayaa fanka Soomaalida gaar ahaan heesuhu waxa ay noqotay in fanaaniintu ay siiskooda bulshada ugu soo bandhigaan, sidaas oo ay tahayna fanaaniintu sanad walba waxay soo saaraan heeso aad u badan. hase yeeshee inta badan heesahaasi ma yeeshaan saameyn xooggan iyo sidoo kale falcelin degdega oo dadweynuhu ay sameeyaan. muddo haatan bil laga joogo oo dabayaaqada bishii December ee sanadkii hore ahayd ayaa fanaanka iyo sidoo kale majaajiliistaha loo yaqaan Cumar Saciid Cumar oo ku magac dheer Omar oo ku nool waddanka Canada waxa uu soo saaray hees erayadeedu ay laba dhacayaan oo halku dhageedu yahay barbar. intuu igaliyay dardahar ayuu ii tuuray barbar. isla markii heestaasi haddaba ay soo baxday ayaa waxay la kulantay xamaasad iyo xiise gaar ah oo ay sameeyeen dadka heestani ay gaadhay ee isticmaala baraha bulshada. falcelinta dadweynaha oo u badnayd muuqaallo ay iska soo duubeen iyagoo jilaya qaybo ka mid ah heestaasi ayaa waxaa si weyn ay u qabsatay baraha bulshada, waxaana dadkaasi ka mid ahaa fanaaniin, haween, dad caana, carruur iyo dhalinyaro. intubana waxay u muuqdeen in qayb ka mid ah heestaasi ay soo jiidatay iyagoo markaasi ku luuqeynaya qayb ka mid ah heesta oo odhanaysa ayuu ii tuuray barbar. isla qaybtaasi heesta ka midka ah ayaa dadku ay raaciyeen ficil ay ku lamaanaynayaan ereyada heestu ay ka kooban tahay. dadkaasi barbarka isu tuuraya oo ku sugan meelo kala duwan iyadoo dadka qaarkood ay heestaasi ku jilayaan goobo barafa, qaar kuraastooda iska tuuraya iyo kuwa si jamaca heestaasi ugu luuqeynaya si ay u muujiyaan falcelinta heestaasi. بربركاسنا هو نوتر بربر dadka heestani falcelinteeda ka qayb qaatayna waxaa ka mid ah shaqaalaha safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Djibouti ee caasimadda Djibouti oo iyaguna arrintaasi ay gaadhay. haddaba telefishanka Home Cable ayaa waxaa goor dhaweed uu la xiriiray fanaanka heestaasi ku luuqeeyay Cumar Saciid Cumar oo ku sugan magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaana wax ka weydiiyay qisada heestaasi. magacaygu waa Cumar Saciid Cumar oo ku magac dheer Omar. heestan waxaa sameeyay abwaan igu qaali ah Mawlid Xasan Curjin. run ahaantii qisada heesta abwaanka garanaya, laakiin anigu heesta waxaan u qaatay waa hees fani ah oo haddana jacayl ah. sababta aan u qaatayna waxay ahayd markaygii hore intaanan fanka soo gelin waxaan ahaa comedian majaajiliste, sidaa darteed baan heestan uga helay oo u jeclaaday una qaatay. fanaan Omar ayaa mar kale telefishanka Home Cable waxa weydiiyay bal waxa uu malaynayo inay ugu wacan tahay falcelinta heestan ay kala kulantay shacabka. run ahaantii waxaan isdhihi karaa ficil celinta dadka waxaa keenay heesta oo ah hees unique ah oo aan la mid ahayn heesaha caadiga ah oo ah qaab ka duwan heesii hore. bulshaduna waxay jeceshahay run ahaantii wixii cusub. waana ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed dhammaantood ficil celintooda quruxda badnayd aad bayna ii dhiirigelisay. Mr. Omar ayaa sidoo kale aanu weydiinay goorta uu bilaabay ku luuqeynta heesaha maadaama markii hore uu sameyn jiray majaajilooyinka. heesaha waxaan bilaabay 2017 bishii 7. ugu dambeyntiina waxaanu wax ka weydiinay hami intee leeg ayay gelisay markii uu arkay falcelinta dadka Soomaaliyeed ee heestaasi ay gaadhay ay ka sameeyeen
maadaama si weyn loogu faafiyay baraha bulshada. waxaan u arkaa dhiirigelin shacabka Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed oo ku luqeynaya heestan anigana waxay ii tahay farxad ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan kale u mahadcelinayaa Honkable TV. Fanaan Omar ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaalida ee matalaysa ama bajilaysa erayada heestaasi in ugu yaraan ay ka fogaadaan khatar inay kala kulmaan isla markaasina marka ay ficilada heestaasi muujinayaan ay doontaan meelo ku haboon oo aan khatar ku ahayn naftooda. Ano ku jiifa qurqur